zaara rasuulullahi rasuulka alle wuxuu soo siyaartay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qabra ummihi hooyadii qabrigeedii ayuu soo siyaartay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi fa bakaa wa abkaa man xowlahu waa ooyey rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wa abkaa man duulna waa ka ooyisiiyey duulkaasoo xowlahu xowla rasuuliillah rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam saxaabadii la socotana dee haddii nabigu uu ooyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyagina way ooyeen saxaabatu rasuuli llaahi sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa qaala rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ista'dantu rabbii rabbigayaan idan weydiistay caza wajalla fii an astakfira laha inaan u dembi dhaaf dalbo hooyaday falam yu'dan lii la ima ogolaanoo la ima idmin ayuu rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh wasta'dantu waxaan rabbigay ka idan weydiistay fii an azuura qabrahaa hooyaday qabrigeeda inaan soo siyaarto fa adina lii ilaahayna waa ii idmo waa ii ogolaaday hooyaday qabrigeeda inaan soo siyaarto fazuuruu lqubuura fainahaa tudakirukum almowta qubuurta ziyaarta ayuu rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh fainahaa maxaa yeelay qubuurtu tudakirukum waxay idin xasuusinay almowta geerida oo sida qofkan xaaladda maanta uu ku sugan yahay saacado ka bacdi ama berriba xaaladdan oo kale inaad noqon doonto ayaad ku xasuusan ayaa lagala jeedaa xadiiskaas nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu caddayn inuu soo siyaartay qabriga hooyadii inuu nabigu soo siyaartay sala allahu wasalam wabaaraka calayh imaamu nasaa-ina wuxuu tarjamo uga dhigay iyo cinwaan uu uga dhigay ziyaaratu qabri almushrik uu yidhi sheekhu oo sheekhu marka isagu wuxuu qabaa oo isagu uu doortay nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi hooyadiis inaysan badbaadaynin dadka naajiyiinta inaysan ka mid ahayn saasuu asagu ula jeedaa saasuuna doortay imaamu nasaa-i wahada min ikhtiyaaraati alimaam النasaaئي raximah الlahu taعaalى laakiin laguma waafaqin sheekha culimo badan ayaa masaladan ku waafaqday culimo badan oo ku khilaaftana way jirtaa culimo badan oo isaga ku raacdana sheekha way jiraan culimmada isaga ku raacsan waxaa ka mid a oo sidan oo kale isagu doortay imaamu اlbayhaqi kitaabkiisa la yidhaha dalaa'il annubuwa sidan oo kale ayuu xadiiska isaguna u fasiray oo nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka caleyh hooyadii inaysan naajiye ahayn oo aysan badbaadaynin oo mushriko ay ahayd ayuu isaguna ku sheegay kitaabkiisa la yidhaaho dalaa'il annubuwa waxaa kaloo sidan sheekha oo kale qaba xaafid ibnu kahiir kitaabkiisa albidaaya waالnihaaya ayuu isaguna masaladan sidan oo kale ayuu isaguna xadiiska uu ugu sharxay waxaa kaloo sidan oo kale isaguna ku sharxay alimaam الnawowi raximah اllahu taعaalى fii sharxihi صaxiix muslim waanu ku soo qaadanay sharxa saxiix muslim inuu sheekhu masaladaa qabay ayaan ku soo qaadanay imaam الnawowi raximah اllahu taعaalى culimo fara badan oo waxaa jirta marka a'immadaasoo dhan khilaaftay oo iyagu doortay oo rajaxay nabiga hooyadii salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi inay naajiya min ahli اljanna ay tahay wahada maa nactaqiduhu wanadiinu bihi اllah kana waa midka annagu aan caqiidaynayno on aaminayno ilaahayna aan uga diin dhiganayno wahada maa nactaqiduhu wanadiinu bihi اllah waana midka annagu aan caqiidaynayno ilaahayna aan uga diin dhiganayno waa sidaas wey culimmada khilaaftay imaamu النasaaئي raximah اllahu taعaalى waxaa ka mid a xaafid الsuyuudi raximah اllahu taعaalى faqad alafa fi hadihi اlmasأala 6 rasaa'il 6 kitaabuu ka qoray xaafid الsuyuudi nabigeena hooyadii salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi naajiya wa min ahli اljanna inay tahay 6 kitaab ama 6 risaalo ayuu ka qoray waxaa kaloo ka mid a sheekhan masalada waxaa ku khilaafay fakhrudiin alraazi ayaa isaguna wuxuu sheegay nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh hooyadii inay tahay naajiya wa min ahli اljanna waxaa kaloo ka mid a abubakr ibn اlcarabi almaliki ayaa isagana ka mid a waxaa kaloo ka mid a alimaam alqurdubi fi kitaabihi atadkira kitaabkiisa tadkirada ah ayuu isaguna uu ku sheegay nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh hooyadii inay tahay naajiya wa min ahli اljanna waxaa kaloo ka mid a sharafudiin almanaawi sheekha la yidhaaho sharafudiin almanaawi sida xaafid الsuyuudi raximah اllahu taعaalى kitaabkiisan alxaawi lilfataawa oo isaguna uu ku soo guuriyey waxaa kaloo ka mid a alxaafid ibn xajar alcasqalaani fi kitaabihi alisaaba kitaabkiisa la yidhaha alisaaba ayuu isaguna madhabkaas uu ku rajaxay wa hada maa nactaqiduhu wanadiinu bihi اllah waana midkaan caqiidaysanahay
maxay marka uga jawaabeen a'immadaas sidaas dooratay xadiiskan hadda nasaa'i oo muslimkuna wuu wariyey nasaa'i keligiis maaha xadiiska imaam muslimna saxiixiisa ayuu ku wariyey waxay uga jawaabeen xadiiskan xaashiyada sindiga khulaasadeedii isagaa kuu soo khulaaseeyey wuxuu leeyahay sindi qowluhu fabakaa wa abkaa ilaa aakhirihi kaannahu akhada waaba isagoo sheekhu nasaa'i ka qaatay maa dakara fi tarjama tarjamada wixii uu ku sheegay oo min almanci can اlistikfaar ah wuxuu ka fahmay nabiga maadaama istikfaartii loo diiday istikfaartii nabiga salى الlahu عalيه wasalam hooyadii inuu istikfaar u dalbo maadaama loo diiday halkaasuu tarjamada sheekhu ka qaatay oo min mujaradi annahu ظaahiru calىa muqtadaa wujuudiha fii waqti اljaahiliyati ama wuxuu ka qaatay xilligii jaahiliyada maadaama ay noolayd nabigeena salى الlahu عalيه wasalam hooyadii laa min qowlihi hadalkiisa kama uusan qaadan bakaa wa abkaa oo ooyinta nabiga lagama qaadanayo nabiga hooyadii salى الlahu وsلم وbaarak عalيه inaysan naajiye ahayn id laa yalzamu kama laasimayo min albukaa'i cinda alxuduur fii dalika almaxali alcadaabu aw alkufru kama laasimayo in la ooyo qofkaas inay gaalo tahay ama cadaab ay ku jirto ma ka laasimayo bal yumkinu waxaa suurtogala taxaququhu taxaququ اlbukaa'i maca الnajaati wاlإslaami aydan qofkan qabriga ku jira isagoo muslima oo badbaaday oo ahluljanna in lagu dul ooyo ayadana suurtogalow laakiin man yaquulu qofka dhahaya binajaati اlwaalidayni nabiga labadiisii waalid salى الlaه وsلم warg waa naajiin oo min ahli الjanة dadka dhahaya lahum ثaلaaثu masaalika saddex dariiqay raaceen saddex dariiq ayay ku raaceen fii dalika xadiiskaas maslak annahumaa labada waalid maa balagatumaa sooma gaarin addacwatu dacwadii iyo diintii uu faafin jiray nabigenu salى الlahu عalيه wasalam sooma gaarin walaa cadaaba calىa man lam tablughu addacwatu ruuxii dacwada nabigu aysan soo gaarina salى الlahu عalيه wasalam ma la cadaabayo waa liqowlihi tacaalى wma kunaa mucadibiina xatىa nabcaثa rasuula ilaa rasuul qofka aan u soo dirno ilahay wuxuu yihi ma cadaabayno ilى aakhirihi falacalla waxaa suurtogala man salaka hada اlmaslaka dariiqan qofkii qaaday yaquulu inuu leeyahay fii ta'wiili اlxadiis xadiiska awilidiisa inuu ku leeyahay waa dadka qaba markaa nabiga hooyadii inay ahlujanno tahay salى الlahu وsلم وbaarak عalayh ina اlistikfaara istikfaartu farcu taswiiri dembi dembi horta in la suuraystay farac ka tah istikfaar yaa istikfaar loo dalbaa qof dembaabay oo dembi galay wadaalika qofka xilliga uu dembi gelayana fii awaani takliifi waa wakti uu mukalaf yahay oo diin iyo dacwo ay soo gaartay diin iyo dacwo ay soo gaartay walaa yucqalu dalika arrinkaasna lama garanayo suurtagal ma aha fii man lam tablughu addacwatu qof aan dacwo soo gaarinna dee istikfaar iyo wax looga istikfaar dalbo meesha maba yaallaan falaa xaajata ila اlistikfaari lahum marka baahiba looma qabo in istikfaar loo yani loo dalbo maadaama dembiba aan la suuraysan karin istikfaar waxaa ka horeeya qofku inuu dembaabo dee dacwana sooma gaarin iyo diintuba sooma gaarin cahdigii nabigeena hooyadii salى الlahu عalيه wasalam iyo labada waalidba ay noolaan jireen ilى اlistikfaari lahum fayumkinu marka waxaa suurtogala annahu maa shurica اlistikfaaru istikfaar inaan ba loo jidayn ila liahli dacwa istikfaar inaan ba loo jidaynba dadkii dacwada iyo diintu ay soo gaartay mooye laa ligayrihim gayrkood maya looma jidaynin wain kaanuu haba ahaadaan naajiyiina kuwa badbaadaya haba noqdaan wa amaa man yaquulu qofka dhahaya biannahumaa labada waalid oo nabiga salى الlahu عalيه wasalam uxiyiyaa lahu nabigaa loo soo nooleeyey salى الlahu عalيه wasalam faaamanaa bihi nabigana waa rumeeyeen fayaxmil wuxuu ku xambaaray hada اlxadiis calىa annahu xadiiskani kaana wuxuu ahaa qabla اlإxyaa intaan nabiga loo soo nooleyn labada waalid ayuu ahaa wa amaa man yaquulu qofka dhahaya biannahu nabigu salى الlahu عalيه wasalam biannahu ilaahi tacala ku rahaye yuwafiquhumaa labada waalid ilahay wuxuu waafajin doonaa lilkhayri cinda اlimtixaani yowma alqiyaama fahuwa yaquulu isagu wuxuu leeyahay bimanci اlistikfaari lahumaa qaطcan ma loo istikfaar dalbi karo falaa xaajata lahu marka looma baahnaba ilaa ta'wiilin qofkaasi ta'wiil uma baahna xadiiska fatadaxa waxaa caddaaday wejhu اlxadiisi xadiiska wejigiisii calىa jamiici اlmasaalika wallahu subxaanahu aclam saasuu marka sheekha sindi uu usoo khulaaseeyey oo yacni istikfaartaas oo nabiga loo diiday salى الlahu وsلم وbaaraka calayhi waxay uga jawaabayaan culummada qabta nabiga labadiisa waalid salى الlahu عalيه wasalam inay naajiyin yihiin wa min ahli اljannana ay ka mid yihiin istikfaar wuxuu farac ka yahay dembi inuu suurto galo de dembina meeshan suurtagal kama ahanoo dacwaba sooma gaarin nabigana salى الlahu وsلم وbaaraka عaleyh labadiisii waalid dacwaba sooma gaarin saasay uga jawaabeen istikfaarta